بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان الصومالي وين ملك استوى جوجتان وقت كستوى يدين تهاي وعنا ونكسن برنامج كيغ عاوة أما موضوع عن ربو إن أن كهدلو waxa ay tahay waxaan ku jirnaa maalmihii xorriyadda Soomaaliya aan ku jirno laakiin su'aashu waxay tahay xorriyadda aan hadda annaga u dabaaldegayno waa xorriyad noocee ah xorriyadda hadda aan u dabaaldegayno waa xorriyad noocee ah haddaba qofka Soomaaliga oo wiilka ama gabadha Soomaaliga ahay xorriyadda horta ciyaar laguma keenin laakiin xorriyaddii malaayiin qof oo Soomaaliya ay naftooda iyo maalkooda u soo hureen annaga ayaa dib god ugu ridnay waqtigaas annaga awoowayaasheen iyo aabbayaasheen ay xorriyadda u soo dagaalameen waxaan haystay gumaysto loo jeedo oo Soomaaliya oo dhan ay dhinac uga soo wada jeeday ama baadiyaha joogo ama magaalaha joogo haddaba xorriyaddii noocaas lagu keenay oo kumanaan kun qof ay dhiigooda u soo hureen waxaa dhacday inaan annagu gacmaheena ku dilnay oo aan dib xorriyaddanadii annagu aan dib u baabi'inay oo aan qarankeena annagu aan aasnay iyadoo dadkii Soomaaliyeed oo xilligaas gumaystaha la dagaalayay aysan haysanin wax hub ah ama hanti maanta sida hantida loo haysto maalintaas aysan hanti badan u jirin ayaa waxaa ka go'nay qofka Soomaaliga ah sida uu dalkiisa uga xoreyn lahaa gumaystaha ayadoo dadku aqoonta maanta la leeyahay aysan lahayn haddaba xorriyaddii noocaas ahayd iyo qarankii saas lagu keenay annaga ayaa god ku ridnay ma ahan tan lama yiraahdo dabaaldeg lama yiraahdo tan ee waxa aan ka dul heesaynaa naxashkii aan ku qaadnay qarankii Soomaaliyeed oo aan qabriga ku geynay ayaan ka dul heesaynaa tan dabaaldeg lama dhihi karo maxaa ay ku dhacday annagu maanta ma naqaano gumaystaan haysto laakiin nooca uu yahay ma naqaano gumaystii xorriyadda laga soo qaaday waa la yaqiinay nooca uu ahaa waana la iska tuuray laakiin kan maanta na haysto nooca uu yahayna ma naqaano meel uu naga jirina ma naqaano meel nooga yimidna ma naqaano heerna la gaarsiiyey inaan idhaahno Soomaali iyadu waxa ma keeni karto ma heshii karto ma talin karto dawlad ma noqon karto dadka Soomaalida qaar baa hadda la sheekaysto kule Soomaali dawlad noqon mayso waay maxay u noqon wayso Soomaali hore dawlad u soo noqotay haddaba gumaystaha maanta na haysta waa mid maskaxda naga qabsaday kii 60kii aan xorriyadda ka qaadanay kaas wuxuu ahaa mid dhagax iyo falaar iyo waran ay dadka Soomaaliyeed isaga tuuraan xornimadoodana ay uga qaateen oo ay harcad waddanka ka bixiyeen laakiin maanta mid kana haysto ma naqaano waxa uu yahay haddii aan xornimiyo xaraga lahaan jiray maanta xaalku waa see haddii aan xornimiyo xaraga lahaan jiray maanta xaalku waa see xayn ma loo go'ay xero uu ibliis degay oo nafta lagu xaraasho xumaan iyo ceebaha xaawalay la gowraco geesi xawda laga jaro xaakimyada shareecada aan laga xishoonayn xasuusaha madow iyo xasuuqan xisaab li'i xoog laysu sheegtiyo rabbi wuxuu xarimay iyo la xalaashaday dhiiggii qarankaanu xaaqnee xabaalaha geynee iyo xornimadii aan dib u xoornay miyaan xawlkii iyo naxashkii xishood li'i u heesnaa xaal qaada xornimooy geesiyadii xabaalaha dartaa xornimooy u galay xaakimow allahayow xawdkii nabiga iyo xariirtii jannada sii geesiyadii xabaalaha dartaa xornimooy u galay xaakimow allahayow xawdkii nabiga iyo xariirtii jannada sii ilaahay waxaan uga baryayaa dadkii u soo geeriyooday xornimadii oo ku shahiiday gacantii gumaystaha iyagoo xornimadii dalka Soomaaliya raadinaya rabbi inuu naxariistii janno ka waraabiyo
inta maanta nool ee daafaha dunida iyagu ku daryeysana ilaahay subxaanahu wa tacaala inta bogtana allaha caafiyo cimrigoodana allaha dheereeyo waxaa ciil iyo tiiraanyo qaba ninkii ama gabadhii xornimadii Soomaaliya ka soo qayb qaadatay ee maantan xaaladda aan taaganahay u jeeda ma dhihi karno xornimo ayaan u dabaaldegaynaa ma dhihi karno way ma haysanaba xornimadii xornimada ma waxa u taqaanaa xornimada ma waxaad u taqaanaan midda aan maanta dul taaganahay miyaad xornimada u taqaanaa dhibaatada dadka Soomaaliyeed ku dhacday xornimo ma waxaad u taqaanaa in wadankaaga ay ka jirto in dad Soomaaliyeed oo Soomaali kula ah la yiraahdo 4 baatay la yiraahdo xornimada ma waxaad u taqaanaa xornimada ma waxaad u taqaanaan in dad Soomaaliyeed la yiraahdo looma ooyaan xornimada ma waxaad u taqaanaan dadkii Soomaaliyeed in xaynba gobol ay ku oodan tahay oo intay maamul samaysatay laan ma ahan taas xornimo xornimadii waddanka Soomaaliyeed ma hayno gacan nooguma jirto hashaani maandeeq meel aliya meel ay caawa marti ku tahay ma garanayno aniga ima ahan dabaaldeg ee waxay ii tahay baroor diiq dad badan oo aniga ila midana waa laga heli doonaa Soomaali ama way ku jiraan waxay ii tahay aniga baroor diiq xornimo ma waxaan u naqaanaa nafta raqiiska ka noqotay dalkeena dadkan maskaxda laga gumaystay ee cidda ka gumaysatana aan la garanaynin ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa xorriyadeeni oo dhab ah iyo iimaankii Soomaali lahaan jirtay iyo sharaftii iyo karaamadii ilaahay inuu noo soo celiyo lama dhihi karo xorriyad baan u dabaaldegaynaa ma waxaa xorriyad taallaa dalka aad maqlaysaan maalin walba 1,000 shilin iyo wax ka yar nafsada dadka loo goynaayo ma waxaa xorriyad taallaa dalka gabdhaha yararka lagu kufsanayo ee inta la kufsado waliba la dilayo 12 jirka 11 jirka 13 jirka inta la kufsaday oo waliba ragga waaweyn kufsadaan la dilayo markaas xorriyad taallaa xorriyad gacanta kuma hayno waxaas xorriyad lama dhihi karo ilaahay waxaan ka baryaynaa xorriyadeeni sharafta lahayd inuu noo soo celiyo ma isweydiisay wiilka Soomaaliga ama gabadha Soomaaliyeed waxaa xorriyada keenay wiil iyo gabar Soomaaliyeed aqoonta maanta adiga aad leedahay aanan lahayn xoolaha maanta adiga aad haysata aanan haysanin ayaa keenay xorriyada Soomaaliyeed oo nafteeda soo huray ilaahay waxaan ka baryaynaa karaamadii Soomaali lahayd inuu ilaahay soo celiyo gumaystahan aanan garanaynin ee maskaxda naga gumaystana ilaahay inuu naga dulqaado gabadha ama wiilka Soomaaliyeed adigoo maanta aqoon leh heer jaamacadeed ka soo baxay intaasoo digrii wata ayaad waxaad suud u gashataa oo diyaarad u soo raacdaa baasaboor ajnabi adigoo wata meesha danyar ma kaa soo galaysaa laakiin aabihii iyo hooyadii Soomaaliyeed ee xornimadan keenay waxay xoolahooda u bixin jireen kuwa baadiyaha jooga xoolahooda waxay u bixin jireen bal inay arkaan Soomaaliya mar xor ah ayay xoolahooda u bixin jireen halka annaga kuwa badan oo maanta naga mid ah ay u imaanayaan wadankii meesha wax yar meega soo gala oo jaanis ah uma dabaaldegayno xorriyo mana hayno xorriyo ciddii aaminsan maanta Soomaali inay xor tahay Soomaali xor ma aha gumaysi nooc ugu xumaabay ku jirtaa maanta Soomaali mana naqaano cidna gumaysanayso dadka Soomaalida qaar daal la sheekaysto wuxuu ku leeyahay dalkan way u dhamaatay rajo male uma dhamaanin rajada ilaahayna laga maquusto insha Allah ta'ala waana ka bixi doonaa laakiin heerka aan marayno
dowlad aniga kama sugayo Soomaaliya dad Soomaaliyeed la shaqeysa arkaysa ku dhahay aniga Soomaaliya dowlad rajo kama qabo rajo waa ka qabnaa ilaahay idankii waana ka bixi doonaa xorriyadeenina waa imaan doontaa haasheeni maandeeqna si dhaba ayaa loogu alalaasi doonaa haddii ilaahay yiraahdo marka Soomaaliya anigu dad badan oo aniga kulay ra'yigaas ila qabana way jiraan xorriyadda aan u dabaaldegayno anigu uma jeedo khayrka Allah na waafajiyo wabillahi tawfiiq